xildhibaan Mahdi Maxamed Xaashi oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gabiley ayaa taageeray dikreetadii madaxweynaha Somaliland Axmed Maxamed Maxamuud Siiraan oo ku soo saaray aasaasidda hay'adda ciidanka debdemiska Somaliland oo xildhibaan Mahdi Maxamed Xaashi sheegay in madaxweynaha Somaliland go'aanka uu qaatay yahay mid geesinimo leh oo ay gabi ahaanba soo dhaweeyeen shacabka Somaliland maadaama uu sheegay xildhibaanku in dalka Somaliland si weyn ugu baahnaa waqti xaadirkan inuu helo hay'ad ciidanka debdemiska Somaliland qaabilsan arrimaha debdemiska oo uu sheegay waqtigan ay tahay arrin aad u wanaagsan xildhibaanka oo geesta kala xusay in loo baahan yahay in madaxweynaha Somaliland lagu taageero go'aanka geesinimada leh uu ka qaatay hay'adda ciidanka debdemiska Somaliland xildhibaan Mahdi Maxamed Xaashi oo ka tirsan xildhibaanada golaha deegaanka degmada Gabiley ayaa si weyn u taageeray isla markaana bogaadin u soo jeediyay madaxweynaha Somaliland wuxuuna ku taageeray go'aanka geesinimada leh oo madaxweynuhu qaatay ee ku saabsan in la aasaaso hay'adda ciidanka debdemiska Somaliland oo waqti xaadirkan shacabka Somaliland ay aad ugu baahnayeen xildhibaanka oo arrimahaasi ka hadlaya ayaa waxa uu yiri Bismillahirrahmanirrahiim waxaan hambalyo iyo bogaadin aan u direynaa madaxweynaha jamhuuriyadda Somaliland mudane Siiraayo waxaan leenahay madaxweyne aad iyo aad ayaanu kuugu hambalyeynaa barnaamijka cusub ee aan Somaliland jirin ee aad keentay ee in hay'ad gaar ah loo sameeyo debdemisyada jamhuuriyadda Somaliland oo halka meel laga maamulo oo laga xukumo oo meel kasta wax ka dhacaan ku dhaqaaqa oo la mid ah hay'adaha jira aad iyo aad ayaan kuugu hambalyeynaa waxaan ku leenahay halka aad taabatay waad asiibtay waana waajib laga sugayay waana ku mahadsan tahay ummadda Somaliland oo dhamina way kugu hambalyeynaysaa anigoo ah xildhibaanada golaha deegaanka ee gobolka Gabiley waxa aan ku leenahay hambalyo meelaha noocaas oo kale ana waa lagaga fadhiyaa in aad ku darto oo aad waxqabadka noocaas oo kale aad ku qabato waliba waxa aan ku leenahay madaxweyne taladii dalka adiga ayaa gacanta ku haya waxa aan ku sheegaynaa ku leenahay debdemisyadu waa important waa muhiim meel kasta oo ay wax ka gutaan wax weeyaan dhibteeda ayay leedahay waxaan leenahay in ciidan gaara iyo muxuu ahaa gaadiid gaara in loo sameeyo gobol kasta taana inaad qorshaha aad ku darto anaguna kula garab taaganaytaa wassalaamu calaykum وجعفر عول هرري شبكة ورركة Gabiley News مقالة Gabiley